ciidamada danab waxay u dhaqaaqeen howlgal gaar ah oo ku wajahan tuulooyin hoostaga deegaanada Tooro Cali Barow iyo qaar kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose si ay uga jawaabaan dhibaatooyin amni darro oo deegaanadaasi ka jira iyo ka hortagga weeraro ay damacsanayd Al-Shabaab. waxay markii ay ciidamada soo gaareen halkani ay horay ka bilaabeen waajibaadkooda. howlgal ayaa ka socda waxay ciidanku raadinayaan gawaari qaraxyo lagu soo xiray si looga hortago in dadka shacabka ay wax ku noqdaan. Kabtan Maxamed Cabduqaadir Cali oo ah taliyaha ururka afaraad ee kumaandooska danab ayaa hogaaminaya howlgalkan. meeshan hadda aan joogno waxaan ugu soo warnahay waxaan ka wadnaa howlgalo ayaamahan baan ka wadnay deegaankan hadda aan ku sugannahay muddo ayuu socdaa howlgalkan welina wuu sii socon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka ujeedka aan u joogno waxay tahay shaqadaas iyo howlgalkaas inaan sii wadno hadduu Ilaahay yiraahdo. way ku guuleysteen in ciidanku ay qabtaan gawaaridii la raadinayay. waa 4 gaadiidka nooca raaxada oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa kuna soo fool lahaa Muqdisho. hase yeeshee taasi ma suura gelin. ciidamada ayaa gaadiidka ku qarxinaya halkan banaanka ah. intuu howlgalkani gaarka socday waxay sidoo kale ciidanka danab burburiyeen jidgooyooyin ay Al-Shabaab lahaayeen. ujeedka howlgalkan la soo qaaday waxay tahay in nimankii ereyadan ku sugnaayay Al-Shabaab in goobo ay ku sugnaayeen la burburiyo nimankaas la ceersado meelaha ay joogaan. howlgalku ujeedkiisu waa intaas. waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee howlgalkani waxaa ka mid ah siideynta daraasiin gaadiid rakaab ah oo u xayirnaa Al-Shabaab oo ay ka doonayeen lacag. ciidamada ayaa u gurmaday shacabka iyo gaadiidkaasi oo fursad u siiyay inay sii wataan safarkoodii sharuud la'aan. Kabtan Maxamed Cabduqaadir Cali waxa uu sheegay in guul ku soo dhamaaday howlgalka gobolka Shabeellaha Hoose oo loo arkay in runtii culays ku soo fool lahaa magaalooyinka waaweyn oo uu ka qaadayo. waxa uu shacabka ugu yeeray in ciidanka ay ku gacan siiyaan waajibaadka qaran ee ay hayaan. howlgalkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli sidoo kale ay ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee danab ay howlgallo amni ay ka wadaan gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. guulo waaweyn ayay ilaa iyo hadda ciidanku ay ka gaareen howlgaladan.